xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Arabsiyood Koosaar Xaaji Cismaan oo maanta howlo shaqo u gaaray deegaanada hoos yimaada degmada Arabsiyood ayaa ku guubaabiyay qaadashada kaarka codbixinta diiwaangelinta oo maalmihii u dambeeyay ka socda degmada Arabsiyood isagoo ugu baaqay bulshada deegaanada Kidiga ee hoos yimaada degmada Arabsiyood maalmaha kooban ee ka hadhay inay ka faa'iideystaan isla markaana ay isku guubaabiyaan sidii loo qaadan lahaa kaarka codbixinta doorashooyinka oo maalmo kooban ka harsan yihiin isagoo amuurahaasi iyo kuwa kale kala hadlaya bulshada waxa kamid ah hadaladiisii goobtan ku sugnahay waa Kidiga dhanaan oo aan maanta kormeer ku nimid diiwaangelinta wacyigelinta aanu ka wadno degmada Arabsiyood degmadan Kidigo deegaankan Kidigo waa deegaan ballaaran oo beeraley ah oo dhaqatana ah kana kooban ilaa 500 qoys ay degan yihiin kana fog Arabsiyood iyadoo ay wada xumo ay u dheer tahay oo buuro tahay meesha oo wadana aan jirin deegaanka Kidigo waxa laga codsanayaa haddaan nahay maamulka Arabsiyood dhammaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland waxa ka socda wacyigelinta diiwaangelinta doorashooyinka kaas oo lagu saleynayo populationka degan degmada ama tuulooyinka marka horumar la leeyahay ee lagu qaybsanayo saami qaybsiga dadkaasi marka inta tiraleeyihiin ay wax loogu qaybinaya marka waxa la inaga codsanayaa in aad isdiiwaangelisaan idinkoo qaadanaya kaarka codbixinta oo ka socda dhammaan gobolada ta kale waxa la inaga wacyigelinayaa in kaarkaasi uu ka kooban yahay qofkii qaangaadhka aan ahayn 16 ilaa 22 iyo kii aan qaadan iyo kii ka lumay Arabsiyood waxa yaala hal sanduuqaasi oo dadka qaangaadhka ay ka qaadanayaan inta kale waxa la tagayaa degmada Gabiley gobolka Gabiley iyadoo ay jiraan cidhiidhi fara badan maadaama ay dadkani ka imanayaan 15 kiiloomitir oo masaafada hadana marka la yiraahdo tagayeen Gabiley halkan waxba inima yaalaan dib weeyaan marka komishanka doorashooyinka sanduuqa Gabiley yaala waxaan ka codsanaynaa in degmooyinka sanduuq wareega ka dhigaan ama ay u soo kordhiyaan sanduuq kale keenaan marka waxa la inaga codsanayaa dadkiinan in aad dadaashaan iswacyigelisaan diiwaangelinta aad doonataan shadan Kidiga ayaan maanta soo booqanay waxaanu ugu nimid inay qaataan kaarka ay hadhow ku ciilbaxayaan anagoo meel dheer iyo masaafo dheer uga nimid aad baan ugu bogaadinaynaa sida ugu dhaqsaha badan ayaamihiina wax yar baa ka hadhay beesa Kidiga inay u diyaar garowday inay halkan ma yaalay Arabsiyood halka ugu dhow ay ka qaadato kaarka sida ugu degdeg badan leh ayaan ka codsanayaa beesa Kidiga aanan ugu nimid shaqaynoo yaabo waxa weeye anaga ugu fog degmooyinka tuulooyinka waxaan jecelahay oo aad iyo aad jecelahay in noo soo dhaweeyo sanduuqa diiwaangelinta Gabileyna ma gaari karno way nagu fogtahay Arabsiyoodna way nagu fogtahay in noo soo dhaweeyo meel dhow oo ka gaarno la noo keeno amba halkayga bal noo keeno ayaan jecelahay beel farbadan oo ballaaran waan nahay oo dad farbadan baan nahay waajib wixii nagu ahay tirakoobkana anaga dhamaysanayna dadkayga soo tirakoobanayna wixii aan waxba haysan amba soo kalumay amba sadaan kolkii hore gelin gabi ahaan hawshaasina anaga noo taala jiro sanduuqaasi hal noo soo dhaweeyo saasaan doonayna dad waxaan nahay magaranaysaay xoolo dhaqato habaylaha hoog farbadan yihiin beeraley ah oo magaranaysaay aan in loo soo dhaweeyo aan yaan jecelahay moodayay karno marka in saasaan ka cusubnaa dawladda Somaliland يعني dadku meel jooga dadka reer guuraaga aad ba hawliisu badan yihiin meel la kuma saleysna inagoo deegaan iyo degmaba isku darsano xoolo dhaqataa beeraleyna waxaan doonaynaa in diiwaangelinta wareegaysa ee haddii alla ka dhigo soo baxday hore wax badan oo waxay ka lumeen waan leenahay wax yar yar oo imiga waqtigii gaarina waan leenahay wax haddii alla yiraahdo dee waqti iskaba halkan ma ahan meel kale gaarina waan leenahay diiwaangelintu aad bay horta hore ugu yaray laakiin dadku imiga waa muxtaaj inay qaataan diiwaangelintooda oo codkooga ay muwaadinimo ay bixiyaan waxaanu ka codsanaynaa dawladda distriga Gabiley iyo golaha waxaanu ka codsanaynaa in diiwaangelintan loo soo dhaweeyo Arabsiyood kale la keeno dadkan deegaanku waa inay qaataan kaarka diiwaangelinta waa inay haddii la ku roon yahay kaarkooga muwaadinka qaataan waa inaan haddii la ku roon yahay Arabsiyood kol hadduu yaallo aan Arabsiyood doonana
موسى حسين حسن لايف تي في دegmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley.